السلام عليكم أخيرتا caawa waxaan idin wadaa muuqaal cusub kaasoo ah sida aad u qarsan lahayd applicationadaada sawiradaada ama muuqaaladaada adigoon isticmaalayn barnaamijyada wax lagu qariyo sida Keepsafe ama Gallery Lock si aad ugu maaranto applicationada wax lagu qariyo daabo hadda talaabooyinkan aan mari doono marka hore waxaan soo kicinayay file managerka ama my files أنا هذا waxaan soo qaatay sawir application muuqaal iyo document markaas aad u qariso waxaa sameynaysaa application ka rename ku sameynaya marka hore horta extension kiisa ka bedelay sawirka kale extension kiisa wuxuu ahaa JPEG waa ka bedelaa marka waxaan ka dhigaa waxaad rabtaa ku qoran kartaa sida in hadda tusaale ahaan waxaan soo qaadanaa Taylor marka janji dheh hadda waa ka sawirkii hawadu ka baxay application ka asagana sidoo kale rename dheh application ka extension kiisa waxa way ABK hadda abis ka dhigaa waxa rabtid waa ka dhigan kartaa asagana waa ka sidoo kale Dude Star hadda qofkii arko isma dhahayo meeshan sawir iyo application ku jiro marka aad rabtid inaad dib u soo ceshidna isla wadadii hadda u mareysaa waxaa ku sameynaya application ka rename ama sawirka rename aan leedahay extension awal sidoo ahaa ku soo celinay marka Dude Star waa application extension kiisa waxa way ABK dib ugu soo celinay change waa ka uu soo laabtay application ka installation u baahan yahay okay waa uu shaqeynaa sawirka asagana sidoo kale Taylor Katir JPEG waa extension kiisa sawirkiis dib ayuu soo laabanayaa JPEG marka hadda sawirka sidiisa ayuu dib ugu soo laabanaa waa ka soo shaqeynaa muuqaalka asagana sidoo kale extension kiisa waxa way MP4 documentiga asagana sidoo kale docx documentiga asagana sidoo kale hadda extension ka waxa rabo ku qornaa application ama magacaaga xigta waa ka dhigan kartaa change marka waxa rabtid waa ka dhigan kartaa hadda tusaale ahaan ASCD change waa ka saad application kii asagana wuu baxay marka dib u soo celinayna rename ku sameeyna extension ka awal sidoo ahaa ku soo celinaa docx extension ka sidiisa dib ugu soo celinaa documentiga extension kiisa muxuu ahaa docx change dib u soo laabtaa doo shaqeynaa muuqaalka asagana sidoo kale MP4 waa ka bedeli kartaa dibna waa ugu celin kartaa marka muuqaalka intaas ayaa ku soo gabagabeynaa waan ku mahadsantihiin daawashadiina bilaa tawfiiq